aqal oo isku waafaqay shirkadda xun inay waddanka ka mamnuucaan DP World. waa arrin aad u qiimi badan labadaa tallaababa. isagoo laba tallaabo oo dhaxalgala la qaaday, waxaa haddana qof walba oo Soomaali ah runtii qalbiga ka xanuujiyey baarlamaankii oo hadda la furay oo la rabay waxyaalaha badan ee hor yaalleen maslaxada ummadda inay wax ka qabtaan. isla markiiba la yidhi mooshinadii baa bilowday. awalna waxaan maqlaynay mooshinno ayaa soo socda. waa wax runtii lagana naxo lagana xishoodo. moshinku markii uu dan ku salaysan yahay iyo saxitaan uu fiican yahay, laakiin mooshin dana shakhsi ah wata, ficiltan ah, iska takhallus ah, waxaa weeye ma fiicna. waa arrin diinta iyo dalka iyo ummaddan dhibaataysan aan maslaxa u ahayn. miyaynu arki la'nahay shacabka Soomaaliyeed dhibaatada ku haysatay dunida dacalladeed, kuwa oonka iyo gaajada u dhimanaya abaaruhu hayaan, kuwa cudurradu laynayaan, kuwa badaha Liibiya ku dhimanaya, kuwa saxaraha ku dhimanaya. miyayna daw ahayn sharaftii Soomaaliyeed inaynu baadi goobno? goormaynu noqon dad diin laho ilaahay ka baqo? goormaynu noqon dad ummadooda u diirnaxo oo damiir leh? goormaynu noqon? runtii ilaahay baan ka rajaynaynaa sida sawaabka inuu ina waafajiyo. waxyaalahan maanta taagan oo mooshinada iyo wax la sheegayo, aniga aragtidaydu waxaa weeye saad awalna ii taqiineen, war walaalayaal inaga daaya, war aan dhaqaaqno horey u soconno. war waddan caadi ama nihin, waddankii dagaal baa ka socda, 30 sano ku dhowaad buu burbursan yahay. war duruuf gaaray u baahan tahay, caqli gaaray u baahan tahay. sidii dad dharagsan oo iska ciyaaraya inaynu maalinba mooshin iyo khilaaf. war qofkii khilaaf keeno waxaad ogaataa Soomaali inay sidan sii ahaato inaad rabtid, shabaab inuu guulaysto inaad rabtid, waddanku dhibku inuu ku dheeraado inaad rabtid. sidaasay noqon haddaad rabtid iyo hadday sidan caqli kaa tahayba, laakiin way iska noqonaysaa. waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, intaana taa dhihin baarlamaanka, waxaan u gudbinayaa war walaalayaal, war inaga daaya mooshinka noocuu yahay iyo cid laga keenay. war mooshinka wuubana dhibi. mooshinka naga daaya. qadaayaadka hortiina yaallee maslaxada ummadda ah taa ka hadla. sidaas waa sida aan ku talinayn jeclahay. hadday dhici weydo oo la yidhaahdo mooshin baa laga keeni, ama xukuumad laga keeni, ama cid kale laga keeni, oo wareerkii iska daba wareeggii ha la galo iyo in horey loo socdo ha la diido, waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed oo si fiican ii maqal. ilaahay dad buu inaga dhigay, dad nool baynu nahay. war walaalayaalo waan diidno. waddanka shacabka wax ka sarreeya ma leh. baarlamaanadan innagaa doorannay, maamulka iyo madaxdoo dhan innagaa doorannay. sidaan rabna hadday u socon waayaan, hadday ciyaarta inaga dayn waayaan iyo danaysiga, aan dhahno maya ma yeelayn. waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed, weliba 17 degme ee Muqdisho oon ballan lahayn, waxaan idinku baaqayaa marna inaynaan yeelin in mooshin iyo wareer saacaddan layna geliyo. maalintaad maqashaan mooshin dhabaa la keenay, waxa hadda jira waan oga. sida ugu dhaqsiyaha badan haddaan arrintaa loo joojinin, gacanta in la isqabsado iyo dib u heshiisiinna lagu dhammaynin, oo waxaas uu sii socdo, intanaaba hadda ceeb iyo dhib inoogu filane. waxaan leeyahay, waxaan ballan qaadaynaa shacabka Soomaaliyeed haddaan nahay culummadiisii iyo kulligood, inaan gacan bira ku qabanayno qofkii joogsan waaya. inaan leenahay war naga daaya waxa idinma suurtagelayso. war naga daaya. shacabka Soomaaliyeed diyaar ahaada. hadduu waxnay sii socdana bannaankaynu u soo wada baxaynaa, ma yeelaynaan leenahay. ciddii isa soo taagto inaga hor timaadana waynu iska qabanaynaa.
waxaana guud ahaan gaar ahaan u jeedinayaa dowladda soomaaliyeed arrimaha amniga ayaan laydinka mashquulinin waxaabad moodaa in shabaab lala shaqaynayaabad moodaa arrimaha amniga ayaan laydinka mashquulinin danta guud ee dalka ayaan laydinka mashquulinin mooshin qofkii keenana waxaan rajo ka qaba isagu inuu ku bixi doono shacabka soomaaliyeed haddaan nahay mayaan leenahay maya mooshin maya danayste maya dibindaabiyo abuure maya war ma yeelayn war ilaahay ka cabsada war dhibka naga daaye ballan ilaahay waxaan ku galaynaa saan horeyba oogu gallay haddaan waxaa la joojinin inaan isu soo baxayno shacabkii soomaaliyeed haddaan nahay inaan dantannada ka tashanayno taasaan ballan qaadaynaa intaasaan rabaa kelmadaydii inaan ku soo aruuriyo